Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dalaantii meel kasta aad ku sugantiin waxaad ku soo dhawaataan barteen YouTube-kan ugu magac darnaa Westbro. Haddaba subscribe inoo saar, like-na noo raaci, waa dhiirigelin. Sidoo kale barta commentiga inoogu reeb waxyaabaha aan ka bedelayna barnaamijyadeena ee aan soo gelin doono barteena YouTube-ka Westbro. Haddaba waxaan idin soo bandhigi doonaa barnaamijyada ka baxaya sida ay u baxayaan. La socod wacan. kadib markii horyaalkaasi dalka Spain ee La Liga si rasmi ah loo furay, taasoo ay keentay in corona jira awgeed loo bandowgareeyay horyaalka dalkaasi Spain. kadib markii xalay toole kooxda Barcelona ay la kulantay dhigeeda kooxda Real Mallorca, ciyaartaas ayaa gebi ahaanteedba ku soo ilaatay 4-1, halka guul muhiim ay gaartay kooxda Barcelona. sidoo kale kooxda Real Madrid ayaa la kulantay dhigeeda kooxda Eibar, ciyaartaas ayaa gebi ahaanteedba ku soo ilaatay 3-1, halka guul muhiim ay gaartay kooxda Real Madrid. sidoo kale barnaamijkan waxaad kaga bogan doontaan horyaalada halkay xaalka kala marayaan. horyaalka Ingiriiska ayaa xaalkiisu u yahay sidatan: kooxda Liverpool ayaa hoggaanka ku haysa dhibco aan macquul gal ahayn, iyadoo la oran karayo koobka ay ku guuleysatay iyadoo ay kaga harsan yihiin guusha koobka 2 kulan oo kaliya, iyadoo la furi doono horyaalka Ingiriiska bisha Juun 20-keeda. sidoo kale hoggaanka ayaa kooxda Liverpool haysa saacate nasiib darro waxaa kooxda Liverpool ayaa laga reebay koobka UEFA Champions League iyadoo dhegta dhiig u dartay kooxda Atletico Madrid. sidoo kale halkan ayaanan ka marnayn horyaalka La Liga dalka Spain. horyaalka La Liga dalka Spain ayaa hoggaan ku haysa kooxda Barcelona iyadoo hoggaanku ay ku haysa 2 dhibcood. kooxda Real Madrid ayaa ku soo xig, hase ahaatee labadii kulan ee wada ciyaareen kooxuhu Barcelona iyo Real Madrid, iyadoo Barcelona dhigeeda kooxda Real Mallorca ay isu aadeen. Real Mallorca ayaa guul muhiim ah laga gaaray, kooxda Barcelona ayaase ka gaartay. ciyaartaas ayaa gebi ahaanteedba ku soo ilaatay 4-1, halka Real Madrid iyo kooxda Eibar ay isu dhaceen, taasoo kooxda Eibar guul muhiim ah laga gaaray, iyadoo ciyaartaasi gebi ahaanteedba ku soo ilaatay 3-1. sidoo kale kooxda Barcelona ayaa ku jirta kooxaha UEFA Champions League ka qayb galayo wareegga 8-damaadka ee lagu qaban doono dalkaasi Turkiga. sidoo kale Real Madrid ayaansan ka marnayn. iyadoo halkan aynan ka marnayn horyaalkaasi dalka Talyaaniga iyo halkay xaalku kala marayaan. haddaba horyaalka dalka Talyaaniga ayaa hoggaan ku haysa kooxda Juventus, iyadoo ay ku hayso dhibcaan macquul gal ahayn. sidoo kale horyaalkan ayaa ah horyaalada aan weli la baasan coronavirus bandowga awgeed ugu jira. haddaba horyaalkan ayaa la baasan doonaa Juun 20-keeda. kooxda Juventus ayaanan ka marnayn UEFA Champions League ee wareegga 8-damaadka ee lagu qaban doono dalkaasi Turkiga. sidoo kale halkan ayaanan ka marnayn horyaalkaasi Jarmalka ee Bundesliga-ha. horyaalka Jarmalka ee Bundesliga ayaa toddobaadyadii hore la baastay, iyadoo hoggaanku ay hayso kooxda Bayern Munich. hase ahaatee koobkan ayaa dhibco yaryar ay ku hogaaminaysa kooxda Bayern Munich, iyadoo ku soo xigta dhigeeda kooxda Borussia Dortmund. sanado badan isxiga ayay ku guuleysatay kooxda Bayern Munich koobkani. hase ahaatee kama marna kooxaha UEFA Champions League ka ciyaari doona ee wareegga 8-damaadka ee lagu qaban doono dalkaasi Turkiga, iyadoo kooxda Borussia Dortmund laga soo reebay UEFA Champions League iyadoo dhegta dhiig u dartay kooxda Paris Saint-Germain. sidoo kale halkan ayaanan ka marnayn Ligue 1 Faransiiska, iyadoo hoggaanku ay hayso Ligue 1 Faransiiska kooxda Paris Saint-Germain dhibcaan macquul galayn ayay kaga haysaa dhigeeda kooxaha kale. hase ahaatee Paris Saint-Germain ayaanan ka marnayn UEFA Champions League ee 8-damaadka lagu ciyaari doono dalkaasi Turkiga. sidoo kale barnaamijkeena ayaanan ka marnayn wararkii ugu dambeeyay UEFA Champions League iyo halkay xaalka kala marayaan.
UEFA Champions League ayaa finaalkeeda in lagu qabto dalkaasi Turkiga lagu balansanaa iyadoo jadwalkii la bedelay kulamada soo haray ayaa lagu qaban doonaa dalkaasi Turkiga. UEFA Champions League ayaa bandowgii ku dhacay sababo jira coronavirus awgeed iyadoo kulamada soo harsan lagu balansan yahay dalkaasi Turkiga iyadoo kulamada la ciyaari doono knockout hadba kooxdii laga badiyo way ka haraysaa koobka kulanka ugu horeeyaba. sababa jira coronavirus awgeed ayaa jadwalkii looga bedelay UEFA Champions League. haddaba halkan kala soco wararkii ugu dambeeyay ee dhanka ciyaaraha. sidoo kale janankeena Westboro ayaad kaga bogan doontaan wararkii ugu dambeeyay dhanka ciyaaraha toddobaadkiiba 3 maalin. sidoo kale waxaad kaga bogan doontaan barnaamijyo kale aad idin xiiso gelin doona barnaamijyadaas ay yihiin taariikhaha. sidoo kale waxaad janankeenaad kaga bogan doontaan barnaamijyo kale aad idin xiiso geliya. haddaba janankeen ayaa waxaan iga codsanaynaa inaad noo saartaan subscribe, like-na inoo saartaan, comment-na noogu reebtaan barta fariimaha haddii aan barnaamijyadeen waxyaabaha qaarkood aan ka bedelayno. sidoo kale waxaan leenahay siina sheergay fiidiyoyaasha. waxaan leeyahay mar walba guusha waa xaggiina. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.